waa BBC Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 7 aroornimo oo gow ah waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada Facebook iyo bogga internetka ee bbcsomali.com jimco wanaagsan kulanti wacan dhegeystayaal waa subaxnimo jimco ah 12 bisha Agoosto ee sanadka 2022 idaacadda subaxnimona waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xaaladda Somaliland oo weli cakiran madaxweyne Muuse Biixi ayaa mamnuucay dibadbaxyo hor leh waxa koow nabadda saadarteed mudaharaad intaasaan rafra waa laga hortagayaa waana dambi qaran waana madax burburin xorriyadda qowla loo gabanaayo qaranka nabadgelyadiisa iyo dadka dhimashada loo dhaawacooda laga ilaaliyaa kowka mucaaradku see waxay ku adkeysanayaan waxay u soconayaan waa xaqda Suuriya habeen bay dhici doonaan maalin bay dhici doonaan saacad bay doonaan bay dhici doonaan waana soconayaan ilaa dawladdu ku soo noqoto nidaamkii iyo kala dambeyntii iyo doorashooyinkii tirinta codadka doorashadii Kenya oo heer gabagaba ah maraysa qoysas badan oo ku barakacay colaad ku soo cusboonaatay gobolka City ee deegaanka Soomaalida qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan iyo wararka ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan idaacadan subaxnimo oo uu soo saaray Maxamed Cabdiraxmaan balse waxaa intaas oo dhan ka horeynaya wararka caalamka ee BBC-da waxa stuudiyaha igula sugan oo u diyaar ah Cabdishakuur Casow mahadsanid Kawthar xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka ayaa maxkamad fadhigeedu yahay gobolka Florida ka codsaday in ay shaaca ka qaado waxa ku qoran warqadda FBI-da loogu fasaxay inay baaritaan ku sameeyaan guriga madaxweynihii hore Donald Trump. Mr. Trump oo koobi haysta ama ka haysta warqadda fasaxa ayaa loo qabtay ilaa iyo gelinka dambe ee Jimcada si uu uga soo horjeesto codsigaasi. Isaga iyo xulafadiisuba waxa ay weerarkii FBI-da ku tilmaameen tallaabo salka ku haysa arrimo siyaasadeed. wargeyska Washington Post oo soo xiganaya dad qariyay aqoonsigooda ayaa sheegay in waxyaabaha ay FBI-da raadinaysay ay ku jiraan warqado ku saabsan hubka nuclear-ka. booliska gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa toogasho ku dilay nin hubeysan oo isku dayay in uu xoog ku galo xafiiska FBI-da ee magaalada Cincinnati. ninka la tuhunsan yahay ayaa ka cararay dhismaha kadib markii uu damiyay alarmiga ku qayliyay dadka aan fasaxa ku soo galin. ciidanka ammaanka oo gawaari ku eryaday ayaa rasaas ay isweydaarsadeen. shir ay yeesheen wadamada xubnaha ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayay Mareykanka iyo Shiinaha labaduba ku codsadeen in khubarada ka socota qaramada midoobay loo ogolaado inay sida ugu dhaqsiyaha badan u booqdaan warshada nuclear-ka ee ku taala koonfurta Ukraine ay qabsadeen ciidamada Ruushka. xukuumadaha Kiev iyo Moscow ayaa midba tan kale ku eedeysay inay mas'uul ka tahay madaafiic lagu duqeeyay meesha ay ku taalo warshadu. boqolaal dabdamis ah oo ka socda ugu yaraan 7 dal oo ka tirsan midowga Yurub ayaa ku biiray dadaalka lagu xakameynayo dab aad u weyn oo ka kacay keymaha gobolka Gironde ee ku yaala koonfurta galbeed ee Faransiiska. Talyaaniga, Greega iyo Sweden ayaa diyaaradaha biyaha tuuro u diray halkaasi. ugu dambeyntiina kumanaan qof oo ka tirsan shacabka Brazil ayaa ku biiray dibadbaxyo ka bilowday dalkaas kadib markii ay soo baxday cabsi ku saabsan in madaxweyne Jair Bolsonaro uu isku dayi doono inuu xilka isku sii dhajiyo xitaa haddii looga guuleysto doorashada lagu wada inay dhacdo bisha Oktoobar. Mr. Bolsonaro ayaa shaki ka muujiyay qalabka elektarooniga ee loogu talagalay codbixinta doorashada waxa uuna weerar ku qaaday garsoorayaasha maxkamadda ugu sarreysa Brazil. warkii caalamka waa nageyntaas Kawthar. Cabdishakuur Casow aad buu mahadsan yahay halka warka ka dhageysanaysaana waa BBC markana qaybaha kale ee idaacadeena subaxnimo. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal aan ku bilaabnay ee madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hogaamiyayaasha xisbiyada mucaaradka ah ee wadani iyo u ciido ku eedeeyay inay qaadayaan mas'uuliyadda khasaarihii ka dhacay dibadbaxyadii shalay dhacay. waxa uu dhanka kale mamnuucay in dibadbax kale ay dhigaan xisbiyada mucaaradka ah. hadalka madaxweyne Muuse Biixi waxaa ka mid ahaa inta soo gaadhay hadda elabo waxa dhintay 5 qof 3 hargeysa ah iyo qof ku dhintay Ceerigaabo iyo mid Burco ah. dhaawac waa badan yahay kullu boqol waa ku dhow waxa nasiib ah dhaawaca boqolkiiba 60 in ka badan inay yihiin ciidamada qaranka oo waraf iyo shiid iyo bud iyo bir iyo qaar xabad ku yaalaanba
khasaaraha intaa leeg waxaa geystay oo weliba ku sii adkaysanaya maantana gudoomiyaha xisbiga wadani, gudoomiyaha xisbiga ucid iyo gudoomiyihii hore ee xisbiga wadani. dhammaan ciidamada amniga, wasaaradaha, dadweynaha Soomaaliya xisbiga soo yihiin waxa koow ah nabadda. sidaa darteed mudaharaad intaasaan rafra waa laga hortegayaa, waana dambi qaran, waana madax burburin xorriyadul qowl loogu gabanaayo qaranka nabadgelyadiisa iyo dadka dhimashada looga dhaawacooda laga ilaaliyaa kowka. madaxweyne muuse biixi cabdi ayuu kaasi ahaa. dhanka kale musharaxa madaxtinimada ee xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in dibadbaxyadu aanay joogsan doonin ilaa laga qabanayo doorasho. waxa uu qadka telefoonka ugu waramay wariyaha BBC-da xasan sheekh cumar. ilaa imika dadka shacabka waxaa ka dhintay 6 xubnood, waxaa daba toosa lagu dhuftay, waxaa kaloo dhaawaca ilaa 100 qof ka badan. waxaa la xidhay gudoomiye ku-xigeenkii xisbiga iyo saraakiil kale oo fara badan. mucaaradka haddaad tihiin waxyaabaha laydinku eedeynayo waxaa ka mid ah in ciidan xamar idinkaga yimid, marka arrintaa maxaad uga jawaabaysaan? kalaan kaga jawaabaynaa waa been cad oo sal iyo raadsoona lahayn, wax cadaynana aan lahayn. markaas taasaan kaga jawaabaynaa. markii ugu horreysayna maaha oo ninkaa wasiirka sheeganaya oo dee been sidaasa sheego oo shacbiga ka dhegeysan yihiin maalin walba inuu dadka waxaa wax lamida la hor yimaado. eeddiisu maanta inuu ku xalaashanayay dadkaa uu laayay maanta iyo dalkan uu gelin doono dagaal sokeeye ayay ahayd eeddiisu inuu ku xalaashanayay. booliisku wuxuu sidoo kale ku eedeeyey taageerayaashiina in ay hubaysnaayeen oo 62 askari ay ku dhaawacmeen Ceergaabo, Hargeysa iyo Burco, qaarkoodna ay hadda jiifaan isbitaalada. marka ma sidaa ayaad xal u aragtaan? madaxda ma aragnay, warkaasina waa been, waxba kama jirin. fiidiyada waa daawan doontaan. dadku qof qura oo hubsita kama jirin, dadku siiriyay siteen. askartu markii dee ay dadka waxba galabsan ee salaamiyey weliba ay xabadda nool iyo sunta iyo jirdilka ay ku bilaabeen. dhallinyarada markaa way xanuunsadeenoo qaar baa dhagxaan iyo ku tuurtuuray, laakiin qof kula hubsitay ma jiro. wasiirka arrimaha gudaha Somaliland horey wuxuu sheegay in dibadbaxyaasha mucaaradka loo ogolaaday goobo cayiman. marka ma goobihii ayaad ka gudubteen oo sidaa ayaa khasaaraha keentay mise waxaa jira qaab kale oo wax u dhaceen? meelihii lagu cayimaan ku qabsan maxaa xaqdooda inay meel noo cayibaan, laakiin mudaharaadka annagu xarunta iyadiida horteeda 2 qof lagu dilay. albaabkii xafiiska iyaga ayaa boolisku 2 qof ku toogtay. meeshii aan ku qabsada laftigeeda ayay dadka ku laayeen, rasaas ku furayeen, xilxidhayeen, garaacayeen. waa meeshii ay lahayn ku qabsada laftigeeda bay 2 qof ku dileen. laakiin hadda dhibaatada dhacday soo adinka laftiinu qayb kuma lihidiin? annagu maxabad baanu sideennay. ciddii halaysayda mas-uuliyadda leh waxaa dee ninkaa wasiirkii hanjabayey ee dhiigga dadka xalaashanayey iyo ciidankii amarkiisa khaldan qaatay baa mas-uuliyadda leh. laakiin meesha xabadda laga ridayey ama ay imaan kartaba in xabadu ka dhacdo soo adinku maadna tegin? annagu xabad ma maanaan jirin, waxnana falmo xabad loo ridaana mamay jirin. dee amar la soo siiyey in dadka la laayo waana la laayay. inagu taa ma hayno oo meel amar lagu soo siiyo hadda ma hayno. waayahay, waxaad hadda noo sheegtaa maxaad doonaysaan oo aad ku qanacdaan? annagu waxaanu ku qanacnaa dee sharcigoo loo soo noqdo, doorashooyinkiida waktigooda la qabto, caburinta iyo cagajuglaynta iyo dadka horxinaya in maalin walba in laga daayo oo xuquuqdooda asaasiga loo daayo oo keligii taleefnimada laga daayo. sidaasaan ku qanacnaa. dibadbaxyadan hadda dhibaatooyin ayaa ka dhashay, adinkuna dibadbaxyadii ayaad leedihiin waa dhigaynaa, dowladdiina dabcan iyadu ma ogola. marka ma joojinaysaan hadda mise waa sii wadaysaan? dibadbaxyadu way soconayaan, waa xaq dastuuriya. habeen bay dhici doonaan, maalin bay dhici doonaan, saacadday doonaan bay dhici doonaan, waanay soconayaan ilaa dowladdu ku soo noqoto nidaamkii iyo kala dambayntii iyo doorashooyinkii iyo dimuqraadiyaddii iyo caburin la-aan ilaa ay ku soo noqoto way socon doonaan. marka taa micnaheedu ma waxa uu noqonayaa in dhibaatooyinka iyo khasaaraha ka dhalanaya ay sii socdaan? annagu si silmiyan kusoo baxaynaa dee khasaaraha xukuumadda geysanaysa, waana annagu xaq aanu leenahay weeye, waan soo baxaynaa waanay soconaya. si kale miyaadna wax ku raadin karin xal kale oo ama waddo kale sida kale? xukuumaddu way diiday, waa ka warqabtaayoo muranku markuu dhacay ergooyin baa isxilqaamay, xukuumaddu way diiday. gudoomiye baarlamaanka iyo gudoomiye guud baa isxilqaamay, xukuumaddu way diiday. marka sidee kale dee bannaan, si kaloo bannaan oo mudaharaad aynima jirto.
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro musharaxa madaxtinimada ee xisbiga wadani oo u waramayay xasan sheekh cumar aan fursada siiyo dhegeystayaasha dhanka facebooka qodobkan ra'yigooda halkan uu soo mariyay waxaa ka mid ah Caydurus Maxamed Cumar oo jooga Booramo oo leh waa arin walaaceeda leh xiisada siyaasadeed ee weli ka taagan Somaliland waxaana ugu baaqaya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka Somaliland inay baajiyaan dhiig dambe oo si micno darro ah lagu daadiyo waayo uu wixii shalay dhacay oo dhimasho iyo dhaawac ahaa si dhib yar laguma hilmaami karo ayuu leeyahay jaamac Saciid Samatar waxa uu leeyahay xaaladda kacsan ee ka jirta Somaliland waxay u muuqataa inaysan joogsan doonin ilaa ay xukuumadda Somaliland cadeyso mowqifkeeda ku aadan qabashada doorasho loo dhan yahay ama lagu wada qanacsan yahay waxaana muhiim ah in mucaarad iyo muxaafadba la ilaaliyo nabadgelyada oo aan lagu ciyaarin wixii 30 sano ee ugu dambeeyay la soo dhisay waa tahay way mahadsan yihiin kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha BBC-da ee Facebook markana aan Kenya aadne natiijada rasmiga ah ee doorashada madaxtinimada Kenya ayaa lagu wadaa in guddiga doorashooyinka uu si rasmi ah u shaaciyo saacadaha soo socda labada musharax ee ugu cadcad Raila Odinga iyo William Ruto ayaa si weyn isugu dhow shacabka Kenya ayaa si taxadar leh u sugaya natiijada doorashadii dhacday Talaadada magaalada Mombasa waxaa Soomaaligi ugu horeeyay taliyo markii ay Kenya yeelatay dastuurka haatan ku guuleystay xubin ka mid ah golaha deegaanka Cabdifataax Ibraahim Cagayare ayaan goordhow weydiiyay wararkii ugu dambeeyay ee natiijada doorashada Kenya kawsaray gudoomiyaha guddiga doorashooyinka wadankan Kenya Wafula Chebukati oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in dadweynaha ay isdajiyaan oo aanay jirin wax ay ka walwalaan markay timaado farqiga u dhaxeeya tabinta tooska ay sameynayaan warbaahinta kala gedisan waxa uu sheegay in warbaahinta tabintaasi u sameynayaan ujeedo ah in ay sameeyaan warbixino ku aadan doorashada oo dadkuna ay tahay in aanay arintaasi ka walwalin waxa uu sheegay barta ay xogtaasi ka helayaan iyo natiijadaasina inay tahay hal meel oo qura oo ay tahay IEBC-da waa hay'adda isaga uu maamulo waxa uu ka digayse in musharaxiinta ay ku dhawaaqaan natiijo aanay IEBC ogeyn oo taasi uu sheegay in shaqadooda ay tahay sidoo kale waxa uu musharaxiinta u ogolaaday buu yiri in ay iyana dhankooda tirsadaan natiijada oo taasi ay bal xogtooda iska sii haystaan iyaguna ay ku dadaali doonaan inay natiijada kama dambaysta ku dhawaaqaan waxaad ogtahay Kawtharay in waqti ay haystaan ilaa haatan waxaana la filan karaa in xilli kasta ay doorashada natiijada madaxtinimada ku dhawaaqi karaan Cabdifataax oo dhanka kale waxaan la soconnaa in magaalada Mombasa lagu dhawaaqay musharaxiintii ku guuleystay golaha deegaanka iyo xildhibaanadaba bal taana nooga waran Kawtharay ilaa iyo shalay waxa iska soo badhacayay natiijada hordhaca guddigan IEBC-da uu ku dhawaaqay golaha deegaanka iyo xildhibaanadaba waxa xalay magaaladan ka dhacay degmo kamid ah in lagu dhawaaqay natiijada golaha deegaanka iyo xildhibaankiiba waa degmada Mvita ee bartamaha magaaladan si gaar ah waxa ay soo jiitay in xaafadda Old Town loo yaqaan magaaladan uu ku soo baxay wiil dhalinyaro Soomaaliya oo inagu meesha joognaan kula kulanay markii shahaadada la siiyay kadib waa Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo aan bal weydiiyay dareenkiisa dareenkayga wallahi aad iyo aad aan u faraxsanahay waa guul maaragtay u soo hoyatay Soomaalida dhan oo degan Mombasa waa markii ugu horreysay aan yeelanay MCA after the constitution si loo ansixiyay kadib Soomaaliya ma helin guushaada maxay kaaga dhigantay wallahi guushan waa guul ay gaartay Soomaalida dhan guushan waa guul maaragtay oo taariikhi ah waa guul aan sugeynay muddo sanad gudaheedaan maaragtay waxaan ku jirnay isdiyaarin qayb walba campaign culus ayaan sameynay kadibna hadda waxaan kale u hambalyeelnahay Soomaalida dhan aad iyo aad ay u caawiyeen aad iyo aad ay la istaageen maxaad leedahay Soomaalida ku midoobay wallahi Soomaalida waxay ku midoobeen markay arkeen maaragtay strategiga la imaaday markay arkeen campaign-ka sameeyay dhalinyarada ku qanceen kalsooni weyn ayay igu muujiyeen marka ayakana aad iyo aad ayaan ugu shukrinayaa mid kale waxaan leeyahay Soomaalida ku nool Mombasa mar walba waxaan aragnaa xaafad walba waxaan ka taagan laba qof oo Soomaali laakiin markaan xaafadeedu waxaan ka taagnaa hal qof oo Soomaali aniga kaliya ayaa musharax ka ahay xaafadaha kale laakiin waxaan ka taagnaa maaragtay ugu yaraan 3 musharax marka waxaan isleeyahay 5 years from now maaragtay inaan isku imaano oo aan ka tashano si aan maaragtay kuraasyo badan maaragtay u qaadan lahayn magaaladan maxaad ku qancisay oo ay sida ku garab istaagay ilaa waxaan arkayay maalintii codbixinta ilaa haatan ku garab taagan yihiin
wallaahi anigana dhalinyarada iska ahay marka waxaan isleeyahay isku mowqif aan ahnay waxaan isku fahanay maaragtay inaan maaragtay kursigaan heli karno iska dhadhicinay inaan juhdi gelino waa meeshaan codka waa la iska xadaa waa la isdhacaa dadka lama aamini karo dadkeena la aaminay marka aniga police station walba meelba laga codeeyo nin Soomaali ayaa ii joogay marka dhalinyarada aad iyo aad maaragtay ayaan ugu shukrin lahaa dhalinyarada Soomaalida Mombasa waliba degan laakiin Soomaali kaliya kuma codeyn Soomaa tartan adag nagu jira dadkii ii codeeyay boqolkiiba 90 waa dadka xaafadda degan oo Maswaaxiliga ah campaign-ka sameynay waliba wuxuu ahaa campaign maaragtay oo ayaka maaragtay aan aad iyo aad u beegsaday xaafadda ay iska leeyihiin waa Soomaalida kuma badno xaafadda la isba dheerin Soomaaliya ay ka soo galayo waxaan maaragtay markii ugu horreysay horta cunsurnimo ugu bilaabeen kadibna aad iyo aad ay soo dhaweeyeen markaan maaragtay campaign door sameeyay oo aan maaragtay tujiyay inaan maaragtay ka soo bixi karo kaalinta MCA waxa u sheegtay marka dadkaas ku qancisay wax khaas uma sheegin dadka waxaan tusiyay maaragtay inaan shaqada maaragtay sameyn karo maadaama ah nin wax bartay oo karti leh oo maaragtay awoodda shaqada yaqaano waa shaqo maaragtay aan ka soo bixi karaan run ahaantii kulli waxaan dhihi karaa adiga waxaan sameeyay campaign oo maaragtay aan la maqlayn Mombasa qof walba magaalada jooga warar haya adiga Cabdiraxmaan oo ganacsada tahay maxaa kugu dhaliyay inaad siyaasadda ku biirtid wadankan hadaad maaragtay kursiga oo wax lagu qabsanayo aad fadhin si walba laga yeelan karaa ganacsatada waliba maaragtay dhibaato waaweyn oo maaragtay mareena jiro oo waxaan u baahanahay maaragtay qof la matalo anigana waxaan istusiyay inaan noqon karo qofkaas waxaan isleeyahay waa kursi loo baahan yahay Soomaalida loo baahan tahay cod inay ku yeeshato magaaladan Mombasa deegaan ay ku leeyihiin ganacsi ay ku leeyihiin marka ma caqabado soo wajahay ganacsatada Soomaalida ayaa kugu dhalisay oo adiga lafaantaada ka mid tahay inaad kursigan u istaagto run ahaantii caqabado maaragtay Soomaalida gaar ahaan u soo wajahday kaliya ma ahan waxaan ii muuqatay meeshan maaragtay loo baahan yahay hogaamiye oo keeno isbedel hogaamiye development keeno marka wax istijaabi aan isnahay ummadana way aqbashay Cabdiraxmaan waxa jirta siyaasiyiinta in lagu eedeeyo markii ay xil doonayaan in ay dadka ballanqaadyo aad u tiro badan u soo bandhigaan oo markii ay guuleystaan kadibna ay albaabada ka xirtaan dadka soo doorta adiga maxaa kaga duwanaan doonta aniga dad la fiiriyo maartay ballanqaadyada sameeyay waa ballanqaadyo oo macquul ah oo waliba uu sameyn karo qofka MCA u taagan dadka waxaan ka ballanqaaday manifestogeedana wala akhrin karaa meel yaala waxaan maaragtay isleeyahay 5 sano gudaheeda ayaan maaragtay ku fulin doonaa marka ballanqaadyo maaragtay oo aan la sameyn karin maanan muujin aniga haatan waad guuleysatay maxaa ugu horeeyay waxaad ka qaban doontaa shaqada ugu horeysa meeska itaalo waxa waaye maaragtay inaan baarlamaanka geeyo mooshino ku xil saaran wax la yiraahdo waa development fund waa qofka markuu MCA yahay wuxuu u baahan yahay maaragtay awood dhinaca qarash la siiyo suu maaragtay u sameeyo development la yiraahdo marka mooshinka ii horeeyo maaragtay ay yaalo waa mooshinkaas ayaan keenaa kadibna marka waxaan fiirinaynaa sida dhalinyarada maaragtay xaafadda joogto aan maaragtay nafaasyo shaqo u raadino ganacsatadana maaragtay aan ka fiirino inaan ka yarayno canshuurta iyo wixii dhan rajada intee la eg tahay 5 sano kadib in waxyaaba aad ku taaminayso dhan aad wax ka gaari karto 5 sano kadib waxaan isleeyahay dib ayaan u fiirin doonaa waxaan buug ayaan qaadanaynaa waan xisaabin doonaa rajadeeda aad iyo aad ay weyn tahay waan hubaa inaan maaragtay fulin doono hadduu ilaahay cimri iyo caafimaadna siiyo waxaan ballan qaaday waa maadaama maaragtay aan hami kale leeyahay oo 5 sano kadib aan dooni doono jago kaleeto marka waa inaan maaragtay insha Allah isku dayo 100% inaan fuliyo at least 90% oo ballanqaadka sameeyay kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo la shaaciyay inuu ku guuleystay golaha deegaanka xaafadda Old Town Mombasa oo caga yare u waramayay isla caga yare ayaa kasii horeeyay oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ee tirinta codadka doorashada madaxtinimo ee Kenya BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba barakac xoogan ayaa laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan soohdinta ay wadaagaan Soomaalida iyo canfarta ee dalka Itoobiya wararka ayaa sheegaya in maleeshiya canfar ah ay shalay subax weerar ku qaadeen aagag ay ciidamada liyu booliska kaga sugan yihiin qaybo ka mid ah deegaanada galbeed ee gobolka City sida ay BBC-da u sheegeen dad ka soo barakacay colaadda Soomaalida iyo canfarta ayaa sanadihii dambe waxa u dhaxaysay colaad salka ku haysa lahaanshaha dhulka xarbi cilmi waxa uu ka mid yahay dadka soo barakacay waxaan uu qadka telefoonka ugu waramay wariye Ismaaciil Ibrahim Burgabo oo jigjiga jooga dagaalku dhowr aad bay ka bilaabeen aagadan la helay oo dhowr meelood ay ka bilaabeen xaggan kale cundufana dhowr meelood bay ka bilaabeen xagga cundufaadaan ku bilaabo oo lugurweyne oo dhowr meel laba meelood godgodka iyo tikada laamiga maxaan laayay xaggan kale soclay
afar saac bay kasoo weerareen marka hadda ciidankii joogay iyo wixii shacab ahaa joogay maxaa la joogada way awoodi kari waayeen oo nin booliska camarta maleeshiyaadkoogii iyo jabadooda way shacabkii adiga waxaad ka mid tahay xarbi oo dadka deganaa Candhuufo xageed u qaxdeen magaaladii hadda yaa ku haray waan ka soo baxnay magaalada hadda waan ka soo baxnay oo waxa weeyaan xaggan iyo sida xagga kilalka Soomaalida oo naga xigay dadku soo baxeen in gaari ka soo baxday oo soo baxday jiraan in soo lagu soo jiraan oo maanta dad waxa weeyaan aan lagu tirin oo jiidiya jira khasaarahana kuma soo qoobi karo oo waxa weeyaan aad u fara badan yahay hadda waxa ugu weeyaan ciidan waxoogaa wixii jooga halkaas way yeelanyihiin oo way ciidan baaxadan hadda wax burmada ma hayno dadkiina way sidii u sii saamayo qayana soo ambay u sii socdaan khasaaraha aagan aad joogto magaalada Candhuufo iyo agaarkeeda dadka shicibka ka soo gaaray muxuu yahay khasaare wallahi ma yaro oo garanaysa dad magaaladooda ka baxay khasaare ka soo gaarayo qofka biyo yar iyo hadduu ugu bidiyo qofka biyo ka qaatay baa ugu waxa weeyaan haweenaa mise oo maanta ayaa ugu roon oo biyo ka qaatay kala kaba sii daran khasaare taa ku dhimasho uu leeyahay nasbaxa oo lagu geysay gacantii aan dhafasho uga baxsan oo ciidan afarta soo geysatay oo dadka hadda wax magaalada dhexdooda ma jirto ilaa anag oo dhowr wiilo waxa maxaa la magaalada dhexdooda ma hayn waya xarbiyo dadku maxay ku qaxayaan xagee ugu dhow oo hadda ay ku socdaan xilligan wallahi runtii dariiq baa jira xaggan Soomaaliya magaalada ka yimid oo ilaa iyo xagga iyo ilaa qawalayaan soo maro barweyn leedahay ilaa soo maro banka marka ay xaggan bal soo kaceen hadda meel gaadhin moogi kulay wixii gaari wato meel gaari ka kale kulay Candhuufo kama dheero diin soo gaari waa in la qabanayo waa wax iska cad magaalo dad intee la eg degan yihiin bay ahayd wallahi dad tiradooda ilaa 800 oo sare u dhaafay badegan shacab badan badegan aad u fara badan badegan magaalada hadda oo galbeedka ugu dad badan baahan way tuulooyin ku ag dhawaa iyo miyiga reer deganaa ma jiraan oo ayaguna qax saameeyay way jiraan tuulooyinka sidan magaalada hadda ay cafartayso magaalada Qonaajo amba shaqada loo yaqaano xaggan kale biyaadamiga deganaayo waxa weeyaan waxaan leeyahay afneedkeedu siman buu soo dhacay xagga kilalka ayuu soo dhacay waxa weeyaan dhow magaalada Candhuufo gudheeda ma wax laga barakacay la dad badan oo magaalada shaqli iyo biyaadi iyo wixii kale maxaan leeyahay magaalada kale ka sareeyay birdaar iyo intaayo qabale iyo intaayo miyo ka sii badan ayaa laga soo baxay saa loogu soo dhacay laamiga baahida ugu badan ee hadda dadkaas sii yaacaya ee barakaca ay dareemi karaan maxay tahay waa wixii nafta bini'aadanka asaasiyaadka bini'aadanka ay u baahnay biyo koobay ka yihiin cunno labay ka tahay iyo waxa weeyaan dadkaasi hadda roobaba jiro oo waxa weeyaan roobaba ka socda hadda roob hadduu tafadhal meelay wax yeelanaan maayaan iyo dadkii adeeg bixinaya gawaadhiisa la saari lahaa xarbi cilmi ayuu kaasi ahaa Ismaaciil Ibrahim Buurgaab uu waramayay markana qaramada midoobay ayaa sheegtay in abaarta Soomaaliya ka taagan oo ah tii ugu xumayd ee soo martay muddo 40 sano ah ay isu bedeli karto macluul 1 milyan oo qof ayaa la rumaysan yahay inay ku barakaceen abaarta taagan iyadoo tiradaas ay sii badan doonto haddii uu baaqdo xilli roobaadka xiga dhanka kale Soomaalida ku nool gobolka Minnesota ee Mareykanka ayaa bilaabay inay dhaqaale u ururiyaan dadka ay saameysay abaartaas Sheekh Xasan Maxamed Jaamac Xasan Dhooye oo kamid ah culimada dhaqaalaha u ururiyay abaarta ayaa u waramay wariye Siyaad Saciid Saalax oo kula kulmay Minneapolis waxa wadna abaabul bilowday ciidii Carafo oo ku aadan abaaraha abaabulkaas guddi baan halkan ka sameynay guddiga gurmadka abaaraha oo qaybaha kala duwan ee bulshada isugu jira abaabulka marka waa bilow dhibaataduna aad bay u baaxsan tahay laakiin abaabul fiican baan wadnaa Sheekh Xasan hawshan aad abaabulkeeda aad wadaan mid ku kooban culimada oo kaliya oo caadiyan masaajidada lacagaha ka guraba mise qaab kale ayaad wax u wadaan arinta culimada kuma koobna dabcan culimadu waa qayb muhiim ah oo lafdhabar bulshadeena u ah maadaama xarumaha ugu muhiimsan aan leenahay oo qurbaha ku leenahay ee maraakiista islaamiga ay yihiin laakiin hawshan waa abaar ka dhacday geeyigii Soomaaliya gees to gees waxa u taala qof kasta oo Soomaaliya oo muslima iyo qof kasta oo bini aadan inuu gacan ka geysto haddana abaabulka socda culimadu qayb ay ka yihiin laakiin waxa ku jirta ganacsato waxa ku jirta dumar waxa ku jira dhalinyaro waxa ku jira hay'adaha ka shaqeeya gargaarka bini aadanimo marka culimada goobna kuma aha runtii abaabul hadda kama ana arkin meel Minnesota ka baxsan laakiin sida caado ahaan jirtay hawshan waa hawl Mareykanka oo dhan u taala waxaan fariintan u dirayaa fursadan ka faa'iideysanaya walaalaha jooga Ohio iyo meel walba dhinaca Southka Mareykanka
inay u istaagaan hawshan maaha Minnesota kaliya waa abaartuna Soomaaliya dhan bay ka jirtaa yoolka aad rabtaan inaad lacag ahaan ururisaan waa imisa والله حالده aad buu culus tahay bini'aadamkan Ilaahay baa deeqi kara dhibaatada intaan hayno 7 milyan oo qof bay abaartu saameysay maanta sida ay soo saartay hay'adda UNHCR 1 milyan oo Soomaali ah ayaa xoolihii ka dhamaadeen oo wadanka dhexdiisa barakacayaal ku ah warbixinta maanta UNHCR baa soo saartay annagu marka waxaan isleenahay 2 milyan hadaa aruurisan dadkaas biyo iyo cunto wuxuu bay ka tari kartaa abaaraha waxaa laga sheegayaa dhulka Soomaalida degto oo Kenya iyo Ethiopia ay ka mid tahay marka qorshayaashiina miyay ku jirtaa inaad deegaanadaas gaarsiisaan mise gudaha Soomaaliya kaliya ay ku egtahay annagu gurmadka iyagu waxaan u bixinay Horn of Africa ama geeska Africa ummadda Soomaaliyeed meel degtaba meelaha abaarta ugu daran inaan gaarsiino ayaa qorshahayagu yahay ma jirto region gooni oo gooni ugu cayiman waa gargaar bini'aadanimo waa gurmad ummadda Soomaaliyeed ay gurmanayso waana gurmad loo gurmanayo ummadda Soomaaliyeed marka haddii deegaan NFD haddii deegaan Soomaali galbeed haddii deegaan Soomaaliya inteeda kale waxaan aaminsanahay in cid kasta oo baahan wixii tabarto ay noqoto la gaarsiiyo Soomaaliya haddaan soo noqono gudaheeda lacagaha aad ururinaysaan oo aad rabtaan inaad geysaan ma dawladda Soomaaliya ayaa toos ugu wareejinaysaan mise hab kale ayaad rabtaan inaad dadka ku gaarsiisaan horta waxaa la yiri markii ceelal heshiisa reer guri biyo cabaan markaan waxelo waaba ka tashan doonaa sida aan yeelino laakiin inta badan anagu ma nihin hay'ad gargaar dadka gurmada sida aan sameyn jiray hay'adaha bini'aadanimo ee gargaarka ee Soomaalidu ay leedahay baan isticmaali jiray hay'adahaasna qasab meelaha ay tagayaan maamulada iyo dawladda ka jirta waxay wada yeelan doonaan xiriir iyo tansiiq marka arintaas gudiga runta iska arki doona go'aanka ugu dambeeya laakiin muhiimadda iyo nuxurku waxa weeye inaan hadda waxelo oo wax aruurino kadibna si aan dadka ku gaarsiino ma waayeen insha Allah taala waana ka tashan doonaa wararka sugan ee aad ka helaysaan gudaha Soomaaliya oo ku saleysan abaaraha oo idin keenay inaad shirarkan qabataan lacagahan ururisaan ma naga warami kartaa dawladda federaalka muddo baaq bay waday oo ku saabsan abaaraha sida ay dalka u saameeyeen dhibaatada dadka haysata hay'adaha waaweyn sida United Nationska UNHCR iyo hay'adaha la midka iyaguna waxay wadeen warbixino iyo qayladaan sidoo kale culimaduna waa nala soo xiriirtay hadda dhinaca Puntland oo kale guddi abaaro oo laga sameeyay culimada way nala soo xiriireen Sheekh Maxamed Xaaji Yuusuf oo kale warbixin bay naga siiyeen abaaraha deegaankaas sidoo kale Gadow sidoo kale South West iyo runtii meelo kale marka culimada meelaha joogta iyo dad fara badan oo xoogaalan way nala soo xiriireen oo waxay noo sheegeen dhibaatada xajmiga ay leegtahay marka abaarta jirta maadaama roobku aad u yaraa sanadihii la soo dhaafay waa wax laga dharagsan yahay waa wax la og yahay waa wax social media meel walba ku jirta marka xogta abaarta waa la hayaa waxaan markale adkeynaya oo ku celinaya inaan gurmano walaalaha reer Mareykan gaar ahaan reer Minnesota Europe Africa meel walba waxaan aad iyo aad u adkeynaya inaan gurmano inaan istaagno dadkii biyo la'aan bay u dhimanayaan cunto la'aan bay u dhimanayaan marka aan gurmano nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu leeyahay ahabbu naas ila Allah anfa'uhum linnaas waxa dadka ugu wanaagsan kuwa dadka anfaca wuxuu ku leeyahay nabiga kaleey salaatu salaam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa sunna xariista oo ku dhulka jooga una xariista Ilaahay baa idin xariisanaya marka aan xariisana aan gacan oo gurmano sheekh xasan maxamed jaamac oo siyaad siciid saalax u waramayay uu kaasi ah ciyaariin haddii aan eegno kooxda Man City ayaa ogolaatay lacag dhan 13 milyan oo euro oo u dhiganta 11 milyan oo pound oo ay siiso Anderlecht si ay ula soo wareegto daafaca Spain ee 22 sano jirka ka yar ee Sergio Gomez City ayaa daafaca bidix raadinaysay tan iyo markii ay ku guul dareystay inay dhameystirto heshiis ay kula soo wareegi lahayd ciyaaryahankii Brighton Marc Cucurella idaacadii subaxnimo oo Maxamed Cabdiraxmaan soo saaray anigoo Kawthar idin la socodsiinaysay waa naga inta nabadgelyo